kusoo dhawaada qaybta labaad aan kaga hadlayno isbedelka ku yimi shahadooyinka Cisco. qaybta labaad xoog waxaan saari doonaa associate level iyo professional level ama CCNA level iyo CCNP level. qaybta hore aan ku horeyno CCNA level isbedelada ku yimi. waxaan wada ogsoonahay CCNA qofku markuu doonayo inuu diyaariyo wuxuu haystay laba optionka koobaad CCNA oo laba loo kala jabiyay laba imtixaano kala duwan intuu galo dabeetana markuu baaso noqonaya CCNA certified. optionka labaadna waa hal CCNA intuu galo markuu baasana uu helayo shahaado CCNA. dadka inta badan waxay raacaan optionka koobaad oo ICND1 bay galaan dabeetana markay baasana ICND2 bay galaan dabeetana waxay noqdaan CCNA certified. hadda ma jirto ICND1 iyo ICND2 hal imtixaano kaliya jira oo loo yaqaano CCNA. CCNA waxay ka koobnaan jirtay dhowr certificate kala duwan: router switch, security, data center. waxaan soo dhan laga tagay waxa laga soo reebay CCNA cyber ops oo ayada laftirkeeda cusbeed 2017 dabayaaqadeedii la soo saaray iyo CCNA cusub baa dhalatay magacna xagga dambe aan laga raacinayn. router switch la raacin maayo, security la raacin maayo, kaliya waa CCNA Cisco Certified Network Associate. waxaana ka kooban tahay CCNA-da cusubi 6 domain ama 6 qaybood. 6 qaybood afar kamid ah waxaad ku arkaysaan waa CCNA router switch baa laga keenay. domainka shanaad waxa weeyaan waa security fundamentals. domainka lixaadna waa programmability iyo automation. labada domain baa ku cusub oo taasna security fundamental waxa laga soo qaatay cyber ops iyo CCNA security. automation iyo programmability-na waa completely waa new. qaybta labaad CCNP isbedelka ku yimi waxa weeyaan CCNP router switch wireless iyo design waa la isku wada daray waxa loo bixiyay CCNP enterprise. CCNP qofka inuu diyaariyo marka hore waxa loo baahnaan jiray prerequisite waa inuu haysto matalan CCNA. qofka doonaya inuu diyaariyo tusaale ahaan CCNP router switch waa inuu haysto CCNA router switch. qofka doonaya CCNP wireless inuu diyaariyo waa inuu haysto CCNA wireless iyo sidaas la mid ah shahadooyinka kale. hadda waxa la sameeyay prerequisite oo dhan laga saaray qofku toos buu u bilaabi karaa CCNP kaliya tiin aqoonta haysta looga baahan yahay laakiin wax shahaada oo la leeyahay la kaalay haba yaraatee ma jirto. CCNP-du imtixaanka ugu yar wuxuu ka koobnaa 3 imtixaan. qofka inuu helo CCNP certified u noqdo router switch kan tusaale ahaan haddaan ka soo qabto 3 imtixaan baa loo baahnaa router switch iyo t-shirt waa inuu galaa dabeetana markuu 3 daba baaso ayaa loo odhanayaa qofkaas waa CCNP router switch certified. security-go kale 4 imtixaan buu ka kooban yahay. hadda waxaa laga dhigay 2 imtixaan oo kaliya waa la soo yareeyay. imtixaanka koobaad waxaa loo bixiyay core exam waana khasab inuu qofku galo iyo concentration exam oo ah ilaa 4 imtixaan kala duwan mid baad ka dooranaysaa. qaybtaad xiiseynaysid, qaybta ku khosaysa, qaybtaad ku takhasusi rabtid baad dooranaysaa dabeetana labada imtixaan markaad baastid waxaad noqonaysaa CCNP certified area doonaysid. 5 area soo haray 5 area enterprise aad doonaysid core baad galaysaa iyo mid concentration markaad labadaba baastid waxaad noqonaysaa CCNP. khasabna ma aha inaad ku horeysid core-ka. concentration exam-kaad ku horeysiin kartaa markaad concentration ka baasid ayaad gali kartaa core-ka. haddaad doontid 2 concentration baad gali kartaa core-kaad ku xigsiin kartaa. certificate walba markaad gashidad baasidna specialist certificate baa lagu siinayaa. even concentration exam-ka aad gashid haddii concentration-ka aad gashid ood baastid shahaado gooniya lagu siinayaa specialist area-daas. core-kana marka lagu darona waxa lagu siinayaa specialist certificate iyo inaad CCNP tahay. marka waxaan arki doonaa enterprise-ka iyo security-ga iyo dadkii hore u diyaariyay CCNP markay gaadho 24 February shahaadadooda hadaan dhacin waxaa jira migration tool CCNP migration tool oo ka caawinaya kolba halkaad maraysid iyo shahaadooyinka laga rabo inaad qaadid. slide-kan waxaan ku arkaynaa shahaadooyinkii Cisco hadda jira ee February markay gaadho dhici doona. entry level-kan CCNT waa qofka ICND1 gala hadda taasi ma jirto. intana CCNA iyo kala duwan arkaysaana waa la isku daray xabad CCNA cusub ka dhalatay. design wireless router switch-na waa la isku daray enterprise baa loo bixiyay. security data center service provider iyo collaboration intaas soo hadhay.
waliba CCNP haddana wax yar ku yara noqdo qofka baasa koorka iyo concentrationka CCNP certified noqda waxay ka caawinaysaa CCIE-da. CCIE waa expert level, laba imtixaan weeye, written exam ama qualification exam iyo practical exam. hadda waxay sameeyeen qofka CCNP qaata tan cusub waxay la mid tahay qof helay CCIE qualification exam ama written examki oo kaliya wuxuu diyaar garoobaya practicalki. Mesela waxaad heshay CCNP security baad hadhow CCIE security saad noqotid laabkun baad gelaysaa written examki lagama baahna sinisa tahay CCNP. aad baa loo fudaydiyey, aad baa flexible looga dhigay, qof walba areadu xiiseynayo inuu shahaado ka diyaariyo, prerequisitna completely waa laga saaray. bal aan aragno website-iska cisco.com. markaad halkaa ku qortid URL-ka hoos u soo daadag kaalay career certifications. page-kana ku soo baxaya, page-kan hoos aan usoo dhaadhacno. halkan waxaad ku arkaysaan certification paths. current waa kan xaadirka hadda la jira ee dhici doona markay gaadho February 24-keeda, iyo ka cusub next level. labadaba aan ku dhufto. This is the current, this is the next level. kan waa kii hore qadiimiga. associate level-ka laga guuray waxaa laga soo reebay CCNA cyber ops oo iyadoo cusbeed, inta kalo dhan waa laga guuray. professional level-ka cloud way ka baxday meesha, router switch way ka baxday, wireless wuu ka baxay, design-kana wuu ka baxay. waxaa laga soo reebay 5 keliyeed. kanna next levelna waa kii cusub ay hadda loo guuri doono markay gaadho 24 February. CCNA waa ka. professional level-kana waxaa ka soo baxay waa CCNP enterprise collaboration data center security service provider. enterprise-kaasaan ku dhufanayaa CCNA first, enterprise iyo security. halkan hal imtixaan baa ku jira oo liiska aan ku jirin halkaas, CCNA cyber ops isnaan ku dhufto. halkan CCNA cyber ops wax ma arkaysaan la leeyahay timekaas la bedelay. markii hore waa lagu daray CCNA-yada migrationka lagu sameeyay retirementka expire garoobay, hadda se waa laga reebay. wax hadda imka wax ka waramaya haba yaraatee ma jirto. for example CCNA-dan oo kale haddii aan ku dhufto router switch xilliga dhacayso ayaan arki doonaa. hadday arkay available 24-ka markay gaadho shahaadadan waa la bedelayaa. CCNA cyber ops waxaa warkaa kuma arkaysid. next level CCNA waatan waxay ka kooban tahay 6 domain. marka qofka inuu doonayo inuu diyaariyo muxuu sameynayaa? wuxuu imanayaa halkan imtixaankan ku dhufanaya code numberkiisa. marka ku dhufto wuxuu imanayaa page-kan waxaad ku sii dhuftaa exam topics-ka. waxaad helaysaa warqad PDF oo topic walba lagaaga baahnaa imtixaanka ku imanaya inaad focus ka saartid. halkan download complete list ku dhufo, PDF-ka daabaco, dabeetana eeg. 4 page buu ka kooban yahay. CCNA router switch-ka hadda waqti xaadirkana ilaa 7 page buu ka kooban yahay, waana 7 domain. kan halku ka yahay 4 domain. qeybtan waa network fundamentals. waxaad ku arkaysaan xoogaa yar oo wireless, laakiin intooda badan waxa weeyaan waa qeybta router switch-ka la keenay, waana 20%. qeybta labaad waa network access ama waa LAN switching technology, waana 20%. IP connectivity or routing technologies waa 25%. IP service infrastructure service baad kii hore loo yaqaanay waa NAT, DHCP, DNS, SSH, TFTP and the like waa service-ku bixinatoodu. qeybta cusub security fundamental, intooda badan tanun baa laga keenay access control list iyo layer 2 security features, DHCP, Snoop, internet, CCNA security-ga laga keenay. inta kalena waa describe iyo qayaxun weeye, macnaheedu wax badan lagama baahna configuration. qeybta cusub ee gebiga Cisco ku cusub waa DevNet oo waxaa loo yaqaanaa programmability iyo automation. marka PDF-kan daabaco sida imtixaanka u diyaarisid. anu gudubno CCNP enterprise. CCNP enterprise live waxay noqon doontaa February markay gaadho 2020. wuxuu ka kooban yahay intaasoo imtixaan. imtixaankani encore
en core waxa weeyaan waa enterprise core baa lasoo gaabiyey waa ka khasab ah in marka hore aad haysatid ama aad gashid dabeetana one of these options baad haysataa qofkii doonaya route iyo switch khabiir inuu ku noqdo imtixaankan u galaya ENARSI waa enterprise advanced routing and service qofka doonaya SD1 oo cusub kaasoo galaya designkii qofkii doonayna Cisco CCDP oo kala diyaarinayay designkaasoo galaya wireless design iyo wireless implementation waa kaas automation iyo programmability baa lagu soo kordhiyay cusub oo qofka doonaya inuu ku sameeyo automation in that network shahadadaas u diyaarinaya marka waa optional kaad ku horeysiinaysid laakiin waxaa lagaga baahan yahay inaad core-ka iyo one of the concentration exam haysatid si aad u noqotid CCNP enterprise certified route switch kaas oo kale marka aan ku dhufano core-ka iyo kaas baan ku dhufto halkana migration tool-ka aan ku dhufto kan waa kii core-ka ahaa exam topics kiisa tagin halkan aad ku arkaysan waxa lagaga baahan yahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu yaqaano IP version 4 IP version 6 virtualization infrastructure network assurance security automation intaasuu ka kooban yahay oo ka core-ka dhamayska tiran CCNP enterprise oo dhan la isku wada daray se routing marka uu timaado waxa lagaga baahan yahay layer 2 layer 3 waa routingkii router iyo routingkii VPN service infrastructure security service iyo automation intaasoo ka kooban yahay aad baa loo soo koobay loo soo yareeyay okay let's go to CCNP security CCNP security core kaasa qofka loo baahan yahay inuu haysto iyo one of this concentration dabeetana wuxuu noqonayaa CCNP security certified oo cusub marka in any order baad ku qaadan kartaa ama VPN kan ku horeysii dabeetana core-ka tag labadaba markaad baastid aad noqotid CCNP waxa ka caawinaysa CCIE halkan haddaba waxaan doonayaa inaan eegno migration tool-ka migration tool ka soo qaad waxaad diyaarinaysaa hadda CCNP baad wadaa gacantaad ku haysaa waxaad haysataa imtixaankii route iyo switch baad baastay waxay gaadhay February 24keeda maxaa lagu siinayaa ee kugu bedelmaysa shahaadada waxa lagu siinayaa Cisco certified specialist enterprise core waxa lagaga baahan yahay one of these exams sida uu noqotid CCNP enterprise hal imtixaan kuwana wanaad gashaa let's say waad gashay t-shirt baad haysataa waxa gaadhay saddexdii CCNP baad haysataa dabeetana waxa gaadhay 24 February waxa lagu siinayaa kow CCNP enterprise baad haysataa iyo laba shahaado kale certified specialist enterprise core iyo certified specialist enterprise advanced infrastructure implementation saddex shahaadad meesha ku heshay oo markay gaadhay 24 February saddexdii CCNP ay ka koobneed route switch oo dhan aad heshay alright taasna waa advantage qofka uu helayo marka haddii se aad haysatid route kaliyata waxaan leeyahay waxa ka maqan wax badan waxaad u baahan tahay saddex imtixaan gashay marka route iyo switch kaliyata waanaad wada heshaa at least haddii doonaysid wax badan aad samaysid laakiin route kaliyata ama switch kaliyata wax badan ku tarmaayo marka switch iyo t-shirt laba imtixaan waa lagaga baahan yahay waxaad leesataan waa maxay enterprise advanced infrastructure implementation core kale lagaga baahan inaad gashay core examka lagaga baahan yahay t-shirt kaliyata dad gashina waxaad haysataa core in core kaas un baa lagaga baahan yahay enterprise advanced infrastructure implementation baad helaysaa materialkii laga diyaarinaya ama bugaagta laga qoro company waxaa jira Cisco Press la yiraahdo ayaa qora bugaagta inta badan Cisco ayaguna waxay announce gareeyeen diyaarintoodii waxaad qortaa halka ciscopress.com dabeetana waxaad ku dhufataa meeshan casaanka waxaad ogaanaysaa bugaagta soo socda halkay marayaan zoomid titleska soo socda tusaale CCNA waa CCNA cusbeed volume 1 Wendell Odom waa ninka bugaagta inta badan qora CCNA CCNP CCIE Wendell Odom nin aad loo yaqaan videogaas kaga hadlaya daawan karta wuxuu soo saaray buugiisa koobaad September 2019 isbedel waa ku iman kara time-ka laakiin xilliga lagu talagalay waa xilligaas CCNP security core Omar Santos waa nin security-ga community-ga aad looga yaqaan caan ku ah
isna wuxuu yidhi wuxuu soo saaray November 2019 Enterprise CCNP Enterprise Core isna wuxuu soo baxayaa oo raggaas oo dhan wada qoreen wuxuu soo baxayaa November 2019 Jason iyo David kaasan ka garanaya David CCNP buugii soo qoray Jasonna waa nin CCIE Cisco Live-na ka qayb gala maalinkii ugu dambeysay MPLS buu ka hadlayay Cisco Live 2019 CCNA Volume 2 wuxuu soo baxi doonaa December library yarna official guide library isna wuxuu soo baxi doonaa December portable command guide kaasna December uu soo baxi doonaa halkan waxaa ku jira advanced routing oo CCNP qeybtii routingka waa January taasna waxay soo baxi doontaa March and the rest you can see it halkaas aad yani kala socon kartaa Cisco Press materialkii iyo waxaad u baahneed final thing dadka diyaarinaya hadda CCNA ee doonaya in imtixaanka galaan waxaan kula talin lahaa imtixaankaas waa in my opinion imtixaanka inaanay gelin CCNA router switchkan ay sugaan CCNP markay gaadho ay la soo daayo ama material kala helo dabeetana CCNP toos u diyaariyaan waayo CCNP baa ka qiimo badan CCNA imtixaanka kaliya ta shahaadadeeda wax badan macna ku samaynaysa hadii CCNP shahaadadiisa aad heshid qofka maanta for example tusaale kale hadan si qofka master degree haysta the bachelor degree-gaaga muxuu ahaa aad ku weydiiyay mesela bachelor degree ma haysataa already waa la og yahay in qofku loo baahan yahay inuu prerequisite yahay bachelor degree inuu haysto sidoo master u helo halkana sidaas ilaa qofka CCNP haysta da CCNA aad ku weydiinayso sidaas ilaa qofka CCIE haysta lagu oranmayo CCNA iyo CCNP ma soo qaadatay waxba lagaaga baahna levelkii ugu sareeyo maraysa marka materialka diyaari aqoonta hel imtixaanka si waxba ha gelin CCNP da la sug CCNP uma baahna inaad certified noqotid CCNA kaliya waxa u baahan tahay inaad haysatid aqoontii marka CCNA da cusubna diyaarisid CCNA di horena diyaarisid CCNP Enterprise ba toos u bilaabi kartaa or CCNP Security or CCNP waxaad u bilaabi kartaa Data Center any area aad xiisaynaysid ayaa toos aad u bilaabi kartaa marka CCNP hal imtixaanaad ka gashidna specialist certificate baa lagu siinayaa oo ka qiimo badan oo laga yaabo in isku lacag noqoto imtixaanka lacagta ku bixinaysa CCNA-da marka intaasna waa my 2 cents way haddii channelkaad ku cusub tahay please subscribe and share with your friends. Salam.